Assalaamu calaykum dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkan kooban oo aynu kaga hadli doono baarkinka meelaha lagu ogol yahay inaad ku baarkinto waxa aad ku garan karto baarkin inay tahay meeshani. Baarkinku af Soomaali ahaan wuxuu ku noqonayaa ka tegid aad ka tagto baabuurkaaga ama gaadhigaaga muddo ka badan 3 daqiiqo ayaa loo yaqaanaa baarkin. 3 daqiiqo ka badan gaadhigaaga waxaa ku waajib ah ama laga rabaa in aad ku baarkinto ama aad kaga tagto meel ammaan ah oo ka madax bannaan wadada caadiga ah ee baabuurtu marayso ama dadku marayaan. Haddii aad intaas samayn weydo waxaa laga yaabaa in baabuurkaaga ganaax ama qaaditaan lagu sameeyo. Qaaditaankaasoo ah mid ay dowladdu qasab ku qaadayso oo lagaga qaadayo dariiqa lagu baneynayo. Calaamadda guud ee adduunyada dhan internationally loo wada yaqaano waa calaamadan P oo midabka buluug ah ku dhex qoran, waxaana P-da loo soo gaabiyey parking. Calaamadani markasta waxaa la raaciyaa ama mararka qaar lifaaqaasi oo tilmaamaya ama shay kale oo lagu sii daba qabanayo oo tilmaamaya macnaha baarkinkan u gaarka ah. Baarkinkan wuxuu gaar u yahay ama loogu talagalay dadka curyaamiinta ah sida ka muuqata calaamadda hoosta lagaga lifaaqay wheelchairka ama gaadhi curyaanka. Gaadhiga halkan lagu baarkimi karaa waa inuu wataa aqoonsiga qofka xaaladan ku sugan. Haddii aad ku baarkinto adiga oon wadan Behindertausweis ama aqoonsigii qofkan ama aanad adiguba ahayn, ganaax ayaad kala kulmi kartaa ka badan qaladaadka baarkinada kale. Calaamadan waa mid kale oo la mid ah tii aynu hadda soo aragnay, waxayna ku kala duwan yihiin tan xariijinta dhulka ayaa lagugu qoray. Wax kale oo ay ku kala duwan yihiin ma jirto. Calaamadan waxay kuu muujinaysaa in uu jiro halkan baarkin ama meel aad baabuurka dhigan karto oo aad ku garan karto xariijimo u gaar ah gaadhi kasta in loogu cayimay. Intaa waxaan ahayn kuma baarkimi kartid. Sawirkii aynu hadda soo aragnay wuxuu muujinayay in ay jirto xariijimo aad baabuurkaaga dhigan karto oo ama kalar lagugu qoray dhulka oo aan la rabin inaad dhinac u dhaafto. Gaadhi walba in mucayin ah ama loogu talagalay ayaa loo sameeyay. Baarkinada qaarkood waxaad ku garan kartaa midabka dariiqa caadiga ah ee ay baabuurtu marayaan iyo meesha lagu baarkimayo ayaa kala duwan. Tusaale ahaan, wadadan inoo muuqata dhinaca uu gaadhigu taagan yahay ee bidixda iyo dhinaca midigta ah ee dariiqa caadiga ah waxaa u dhexeeya line yar oo cad. Line-kaasoo muujinaya wixii dhinaca bidixda ka xiga inuu baarkin yahay. Qaybta cobblestone-ka ama dariiqan yar ee dhagaxa ka samaysan. Qaybta kale ee wadada caadiga ahna waa dariiqii baabuurtu marayeen. Baarkinada noocan oo kala ah inta badan waxaa laga helaa xaafadaha dhexdooda ah ama meelaha ka fog centrumka magaalada ama centerka magaalada, waana bilaash, lacag la-aan, wax lacag ahna ma laha, wax waqti ahna ma laha. Sida kuu muuqata wax calaamad ahi kama muuqato meeshaas. Inta aad rabto ayaad ku baarkiman kartaa. Baarkinkan waa baarkin lagaa rabo inaad lacag bixiso, waxaanad ku garan kartaa calaamadan hoose ee mid park shine. Waa halkan ku baarkin mid park shine adiga oo park shine soo jaranaya. Qiimuhuna wuu kala duwanaan karaa. Qiimaha baarkinku ma odhan karno waa isku mid, waxay ku kala duwan yihiin goobaha iyo meelaha ay ku kala yaalaan. Calaamadani waxay markasta ka dul taagan tahay mishiinka aad ka jaranayso warqadda
lacag bixinta ee baarkinka ama parkshineka. haddii aad meel ku baarkimatay lacag ah oo aad raadinayso mashiinkii aad ka jaran lahayd lacagta, badanaa calaamadan ayaa ka dul taagan oo aad ku garan kartaa parkshine automat. dariiqan waa dariiq Einbahnstraße ah ama one way road, ama dariiq hal dhinac u socda oo aan jihada kasoo horjeeda aanay baabuur kaaga imanayn. dhinac ka mid ah waxaa jira baarkin, inta badanna waa dhinaca bidixda. waxaana laguu ogol yahay inaad ku baarkimato 2 saac 2 stunden halkaa sida inooga muuqata oo lacag la-aan ah maalmaha isniinta ilaa jimcaha laga bilaabo 9 ilaa 6 maqribnimo, ama si kale haddii aynu u dhigno Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. intaas waxaa lagaaga ogol yahay 2 saacadood oo free ah oo lacag la-aan ah. Samstag waxaa lagaaga ogol yahay 9 ilaa 2 duhurnimo. waxaana lagaa rabaa inaad isticmaasho shayga yar ee caaga ah ee muraayada ama shaashada gaadhiga horteeda lasoo dhigo ee loo yaqaano Parkscheibe, si loo ogaado xilliga aad timid iyo xilliga ay kaaga eg tahay bixitaankaaga ama ka dhaqaaqida meesha. caagan yar ee buluug ah waxaa la dhahdaa Parkscheibe, waana shaygii aan hadda soo sheegaynay. wuxuu tilmaamayaa xilliga aad timiday meesha aad ku baarkintay, gaar ahaan meelaha loo ogol yahay 1 saac 2 saac 4 saac 1 stunde ama 30 minute. tusaale ahaan haddii aad timiday 13 Uhr 1 duhurnimo ama 13 saac, waxaad ka tegaysaa haddii lagu ogol yahay 1 saac 2 ayaad ka baxaysaa. markaa macnaheedu waxay tahay 1 ayaad timiday, 1 saac baa lagu ogolaa, 2 waa inaad ka dhaqaaqdaa. haddii 2 saac lagu ogolaa waxaad joogaysaa 1 ilaa 2, 2 ilaa 3, markaa 3 ayaad ka dhaqaaqaysaa. markastana calaamada yaree cad ee 3 geesta ah waxaad ku beegaysaa saacadda aad timiday. tusaale ahaan halkan waxaa ka muuqda inaad 1 timiday, kasoo qaad inaad timiday 12:40. markaa maxay noqonaysaa? ma 12:40 baad dulgeynaysaa, ma 12kaad kasoo bilaabaysaa, mise 1daad dhigaysaa? sida ugu saxsan waxa weeye haddiiba ay saacad ka dhiman tahay 20 minute, 20ka minute extra ama dheeraad ayay ku yihiin, saacadda soo socota ayaad kusii qoranaysaa. 12:40 ayaan imid, waxay ka dhigan tahay in aan imid 1 duhurnimo. markaa waxay noqonaysaa haddii saacad lai ogolaa 2dan ka baxaya, waxaanan haystaa 20 minute oo 12ka ah iyo 1 saac oo lai ogolaa. imtixaanka tiyoorigana waxaa ku jirta su-aal noocan oo kale ah oo ay ku qoran tahay 10:40 ayaan imid, maxaan ku qorayaa meeshaas? markaa 11 ayay noqonaysaa. su-aashu waa su-aal noocan oo kale ah, waxaanan filayaa in aad hadda ila fahanteen. calaamadanina waa calaamad muujinaysa in laguu ogol yahay 30 minute ama saacad barhkeed oo aad isticmaalayso caagii yaraa een hadda kasoo hadalnay Parkschiebihii 30 minute. markaa waxaa lagu ogol yahay isniin ilaa jimce 8 ilaa 6 maqribnimo, sabtidana 8 ilaa 12 duhurnimo. tanna waa mid kale oo muujinaysa in laguu ogol yahay 1 saac maalin walba 7 ilaa 7 fiidnimo, 7 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo, ama 7 Uhr bis 9 Uhr. 1 saac ayaa laguu ogol yahay oo maalin walba ah, sababtoo ah wax maalina kuma qorno. waxaanad isticmaalaysaa caagii Parkscheibaha ahaa ee hadda kasoo hadalno. calaamadani waa calaamad muujinaysa in laguu ogol yahay baarkinkaas oo qaabkiisu noqonayo inaad dhinac wadada ah baabuurka u saarto. sida sawirka ka muuqata waxaa laguu ogol yahay 2 taayir oo isku dhinac ah inaad saarto
jidka ay dadku maraan ama dariiqa yar ee wadada ku naban. Laba taayir oo kale oo isku dhinacana in lagu ogol yahay inaad dhigto wadada caadiga ah ee baabuurtu marayaan. Inta badanna parking-kani waa free, sida ka muuqata wax lacag ah ama wax calaamad ah oo muujinaysa in waqti yar lagu ogol yahay malaha. Badanaana waa meelaha dariiqu uu yar yahay ee aanu ku wada filnayn baabuurta marasa iyo parking-ka. Calaamadanna waa calaamad muujinaysa inaad gaadhiga dhigto dariiqa ay dadku marayaan. Yacnihii waad ka saaraysaa dariiqa baabuurka, dariiqa caadiga ah baabuurtu marayso, waxaad dul dhigaysaa geefeega ama meel ku naban dariiqa ay dadku marayaan, iyada oo ay u bannaan tahay in ku filan dadka wadada maraya. Calaamadii parking-ka ahayd ee aad dariiqa ku baarkimaysay dushiisa dariiqa dadku ay marayaan waxaa lagu hoos qabtay Fona mit Park Ausweis. Dadka degan ee haysta Ausweiska parking-ka. Parking-ka noocan ah laguma ogola inaad ku baarkinto maadaama aanad haysan Ausweiskaas meesha ku qoran. Laga bilaabo saacadda 18 Uhr bis 9 Uhr next tag. Laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa iyo 6 maqribnimo ama 18 Uhr waad ku baarkiman kartaa. Sababtuna waxa weeye 6 maqribnimo wixii ka dambeeya ilaa 9 subaxnimo maalinta dambe dadka degan meesha ayaa loogu talagalay. Intaa kale waa exceptional oo waa lagu ogol yahay. Parking noocan ah haddii aad aragto weligaa ha ku baarkimin, sababtoo ah waa parking gaar ah ama gaar loo leeyahay oo aan lagu ogolin inaad ku baarkinto. Lacalla haddii ay dhacdood ku baarkinto oo ay dadkii lahaa ogaadaan, baabuurkaaga waa lagaa jiidi karaa ama waa lagaa qaadi karaa. Korkana waxaa kaga qoran parking verboten, waa mamnuuc inaad halkan ku baarkintaa. Calaamadan aynu u jeedno iska dhaaf inaad ku baarkinto inaad istaagto xataa laguma ogola. Waa halt verbot, inaad istaagto xataa lama ogola. Waa calaamad kale oo muujinaysa parking lagu ogol yahay oo lacag la-aan ah inta aad rabto, looguna talagalay in aad wadada gaadhiga dhinac uga saarto. Calaamadani waa parking free ah oo lacag la-aan ah, aanad inta aad rabto ku baarkiman karto. Waxaana lagaa rabaa qaybta hore ee gaadhiga inaad afka u saarto wadada ay dadku marayaan. Qaybta dambe ee gaadhigana in aad wadada baabuurtu marayaan u reebto. Yacnihii wadadani kuma filna baabuurta maraysa iyo parking-ka. Sidaas darteed ayaa lagugu amrayaa inaad qayb ka mida gaadhiga hore uga kaxayso dariiqa. Calaamadani waa calaamad muujinaysa parking dadka degan xaafadda loogu talagalay ee haysta Park Ausweiska sidii aynu hore usoo sheegnay. Park Ausweiskaas dadka haysta ayaa loogu talagalay inay ku baarkimaan oo uu free u yahay marka laga reebo Isniinta ilaa Jimcaha 9 ilaa 8 habeenimo ama 9 bis 20 Uhr oo 2 saacadood lagaaga ogol yahay. Haddiiba aad booqato xafiis ama meel dhisme ama meel oo aad ku aragto bisuuqa, waa parking loogu talagalay dadka soo booqday shirkadan, kombanigan ama meeshan aad u socotay. Markaa badanaana waxaa la raaciyaa shirkadda magaceega, laakiin haddii aanay shirkado kale ku dhex oolin, waa parking loogu talagalay booqdayaasha ama dadka soo booqday shirkadan ama kombanigan ama meeshan aad ku aragtay. Intaas waxaa inoogu dhan cashirkeennii koobnaa ee ku saabsanaa parking-ka
iyo siyaabaha aan ku garan karo in aan meeshan ku baarkimi karo iyo waqtiga la ii ogol yahay. Inkastoo ay jiraan calaamado badan ama astaamo badan oo muujinaya baarkinka noocyadiisa kala duwan, laakiin intan waa qaybo ka mid ah qaybaha ama noocyada baarkinka oo aan u arkay inay muhiim tahay. Laakiin intan way ka badan yihiin astaamaha ama noocyada baarkinka ee dunida ka jira ama gaar ahaan wadankan Germany. Si aad ula socoto cashirka xiga, fadlan subscribe lana wadaag asxaabtaada.